muuqaalkan ku saabsan yahay qaabka aan inta EVC-ga lacag ka diro aan ugu bedeli karo USDT. waa simple markii aan imaado qaybtan hadda from waa EVC waa sax qaybta tuudan inta imaado ayaan waxaan dooranayaa tusaale qaybta loo yaqaano TRC20ga oo ka mid ah networkyada USDT la isugu diro marka waxaan rabaa inaan diro lacag ka soo qaado $24 iyo bara okay ama $20 rabaa inaan diro ka soo qaado waa madishaba halkan wuxuu ii sheegayaa charge-ku inuu yahay $3 oo neda marka lacagtu ay $100 ka yartahay that means $20 ee aan diray $17 unbaa isoo gaaraysa $3 waa la iga goosanayaa waxaa iisii dheer marka lacagta uu goosan doono tusaale dhaqdhaqaaqa marka aan sameeyo Binance-ga waxaa jira network kale oo la yiraahdo BEP20 oo USDT isugu diro oo asna aad u fudud ka waran haddaan doorto marka BEP20 maxaa dhacaya BEP20 aan doortay automatically waa simple waxaa la iga rabaa 175% lacag u dhiganta ayaa la iga rabaa waxa aan la baxayo waxyaabana ahaadaano okay $20 markaan 175% la iga jiro waxay u dhigantaa 35 senti lacagta isoo gaaraysa waa $19.65 laakiin ogsoonow waxaa dhiman dhaqdhaqaaqa marka aan sameeyo Binance-ga lacagta uu goosan doono taas maskaxda ku hay okay waxaan idin ka soo qaad marka hal su'aalo kale marka dadka qaar ay xogaa ay isweydiiyaan jirto muhiim ah oo halkan inaan dhex geliyo asal ay tahay oo ah waa maxay lacagta ugu yar ee aan diri karo lacagta ugu yar ee aan diri karo waa $10 taa horta waa inaa ogaato asal waa inaa ogaato lacagta ugu yar ee aan diri karo waa $10 haddii ka waran aan $9 geliyo meeshaas ka soo qaad $10 ka soo maaha swapka ma ii shaqaynayo waa la banaday marka taa horta xusno lacagta ugu yar ee aad diri karto waa $10 hay process ku socona marka hadda $20 aan gelinayaa shaqadeedaan bilaabayaa swapkian aaday wuxuu tusayaa hanaankii aan hadda soo baranay ee markasta ah laba arrimood in dhaqdhaqaaq hore u dhacay aad confirm garayso inaad cusub hadda samayso maadaama mid dhacay aanan confirm garaynaynin hadda waxaan abuurayaa mid cusub hanaanka lacag dirista EVC markasta waa iska simple oo habraaca caadiga ah ee lacagaha loogu diro waxa loo yaqaano marginka ayaan mari doonaa insha Allah tacaala iskana ogsoono fartan guduudan ee meesha ka muuqato waa ogeysiis lagu leeyahay markasta adaa mas'uulka ah waxa aad meesha soo geliso haddii adresska iyo network wax lagugu diraayo ay wax ka qaldan yihiin ciladii ka timaado adaa ka mas'uula marka inta aadan process ku dhaaqin ba waxa ugu weyn ee markasta aad u baahan tahay inaad ka fikirto waxay tahay inaad adresskaaga uu mid la hubo ahaado sababtoo ah lacagaha dhaqdhaqaaqyada la xiriira maxaa leedahay kriptada waa wax aan soo laaban karin haddii marbaxan taa maskaxda ku hay okay requestiga aan abuurayaa wuu soo aqrinayaa automatically lacagtii binka ayaan gelinayaa $20 baan rabaa inaan yigsi u diro waan diray marka ay joogto marka in aniga la ii soo diro ama la ii deposit gareeyo EVC anaa diray in aan kripto helo aad u fudud dhaqdhaqaaqaas qaadan doontaa 3 daqiiqo inta badan in lagu qabto ay tahay daqiiqad wax ka yar ayaa lagu dhameeyaa inta badan marka automatically 3 daqiiqo gudahood lacagtii waa ay gaartay withdrawgina waa la ii xaqiijinayaa intaas gudaheeda haddana waa dhameeyeen shaqada automatically waxay ku dhamaatay waa 40 second camal Binance-ga lacagta way jirtaa haddaan fiiriyo maxaa la yiraahdaa receiptkayga EVC aan lacag ka diray BEP20 network ah oo Binance aan la ii dhigay $30 ayaan waxa weeye dirsaday 5 senti laga goostay $19 iyo 65 senti ay gaadhay okay ka waran haddii aan rabo inaan Binance-gayga USDT ka soo diro oo aan helo EVC waa same kaliya waxa isbedelaya qaybta kore ayaa waxa ka dhigaysaa maadaama lacagta hadda aan isticmaalin nisa isku ogeyn ay BEP20 yarqaysan tahay network-gaas aan isticmaalaya bas lacagtii Binance ku jirtayna waa $19 iyo 65 senti hadda la ii sheegayaa hadday intan soo baxdo waxay goosan doontaa ama la iga goosan doonaa 25 senti kaliya la iga goosan doonaa markii aan soo diraayo way ka duwan tahay hadday boqoleey ahayd laakiin markan kaleente way ka fududahayba 25 senti kaliya la iga rabaa okay markii aan iraahdo swap wuxuu ii soo madhigi doonaa haddii idanka ilaahay laga helo facekan kuu muuqda oo ah inaan sameeyo wax simple ah maxay tahay haddii device kale oo dheeraada aan Binance ka isticmaalayo
QR code kan ayaan iskan gareynayaa haddiise hal device aan wada isticmaalayo copy aan internet wogan meesha la iisoo dhigay ilaahdo ama adresskan oo qaato ayaan waxaan ku basti gareynayaa Binance kadib aan shaqada ka wadaya okay inta aan waxba confirm dhihin waxaan copy gareysanayaa adresska marka adresska copyisto waxaan aadayaa Binance-gayga okay inta aan confirm dhihin marka hal mid maskaxda ku hay aniga hadaya $19 iyo 65 sent ayaa codsaday waxaa la ii sheegay inaan heli doono $19 iyo 40 sent xisaabta marka qaar mid aan lagu darin oo dadku ay iloobaana jirto oo qaad abuurta taasoo ah Binance-guna dhaqdhaqaaqayga lacag ka goosan doona $19 iyo 65 sent aa codsaday haddii Binance-gu uu lacag ka goosto lacagtii inaan soo diray hadayay aan halkaas ku qoray lacag ka yar soo dhici doonto maadaama lacagtii lacag ka yar ay soo dhacday lama xaqiijin karo waa lagu wariirayaa inta marka aadan dhihin confirm dib u laabo back dheh calaamadaas back taabo dib u laabo marka back tiraahdid wuxuu keeni doonaa qaybtii hadayay ka timid oo halkaan ahayd okay lacagtan hadda markii update garee USDT-da saxda ah ee Binance ka soo baxday halkan ku qor hadda aniga Binance-gayga waxa ka timid $19 iyo 45 sent 20 sent waxa ay goostay Binance-ga marka intaas sameeyo hadda waa confirm garay karaa automatically confirm markaan dhaho waxay qaadanaysaa waqti aad u yarba waa kaasa uu dhaqaaqay time count ka bilaawday 3 second gudaheed deposit-kayga waa confirm garay waa 3 second gudaheed okay withdrawgayga muxuu qaatay isna waa kaasa waa 15 second lacagtii oo soo dhacday haddaan eego receipt-kaygana waxaan arkayaa lacagta aan diray tiradeeda meesha aan ka diray iyo halka la iigu soo shubay wixii laga goostay intaas oo idil waxaan rajeynayaa inuu muuqaalkan dad badan caawin doono insha Allah khayr badan